mudane aadan cabdulle cismaan daar wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee jamhuuriyadda Soomaaliya. wuxuu kaalin muhiim ah oo aan la iloobi karin ka soo qaatay halgankii gobonnimo doonka ummadda Soomaaliyeed ee lagu raadinayay xorriyadda. eebbaha u naxariistay aadan cadde wuxuu dhashay sanadkii 1908 wuxuuna ku dhashay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. wuxuu waxbarashadiisa ku qaatay magaalada Muqdisho iyo dalal dibadda ah. sanadkii 1944 wuxuu ku biiray ururkii gobonnimo doonka Soomaaliyeed ee SYL, wuxuuna ururka ka noqday xubin firfircoon isagoo ka qabtay xilal kala duwan oo sarsare. 1960kii markii xorriyadda ay qaadatay jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya oo si dimuqraadiyad ku jirta loo soo doortay. intii uu xilka hayay wuxuu aad ugu dadaalay sidii ay xorriyad u heli lahaayeen gobollada kale ee Soomaaliyeed ee weli ku jiray gacanta gumaystaha, samaynta shuruucda muhiimka u ah dalka, sare u qaadista waxbarashada, dhismaha ciidanka iyo arrimo kale. madaxweyne aadan cabdulle cismaan wuxuu xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya hayay intii u dhaxaysay 1960kii ilaa 1967kii, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo si dimuqraadiyad iyo wadaniyad ku jirta uga daga xilka madaxtinimada. dadka yaqaanay madaxweynaha waxay ku tilmaamaan inuu ahaa nin wadani ah oo jecel dadka iyo dalka, sidoo kalena aanan weligiis lagu tuhmin kala fogeynta dadka Soomaaliyeed iyo waxa loogu yeero musuqmaasuqa. allah u naxariistay 8 bishii Juun sanadkii 2007 ayuu mudane aadan cabdulle cismaan madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya oo ku geeriyooday magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.